indha cadays iyo indha adkaan buu halkaa la soo istaagaya oo waxaasaa jiro leey waa ku celinaynaa ninka xeer ilaalinta ka ah degmada boorama ee dadka xukuma ee weliba waa lala socdaa dhallinyarada gobolka way joogaan way la socdaan isagaiyo nin amiin la yidhaaha baa jira oo ku celinayaa ninkaa waxaa la yidhaha cabdi haybe cilmi baa la yidhaha waqtigiisii rayaa la keenay nin amiin la yidhaaho reer berbera oo janana baa u soo xidhxidha dadka waxa dadka lagu soo xidhxidhaa awdal steedii maxay baa tihiin $1,500 ilaa inta u dhaxaysa $500 oo madax furashaa baa laga qaadaa say dadka xoolo yihiin dadka reer boorama haddaad waraysataan amiinkaa iyo aan kuu sheegaya cabdi haybahaas way yaqaanaan way ka dharagsan yihiin waxay qabtaan iyo waxay gudaan dhallinyarada bajaajka jaamacadda camuud ka soo baxday ee hargeysa markuu tegey wasaarad keliya laga shaqaalaysiin waayey ee wasaaradaha iyo wasiirada iyo agaasimayaashu hayb wax ku shaqaalaysiiyaan iska soo noqday xaafadoodu bajaaj u iibisay ayaa ninkaasi cabdi haybe oo muuse bixi adeer u yey dhallinyaradii ku xidhxidhaya awdilisteedii qaranbaad ka soo horjeedaan marka awbayaashoodu tagaan iyo waalidiintooduna wuxuu ku leeyahay $500 ama $1,000 waa in la bixiyaa oo madax furashaa qofka ree awdal waa in uu noqdaa sida ka hargeysa jooga markuu sistamka dhaliilaya muuse yidhaaheen madaxweyne oo dhan hal nin baa yidhi muuse annagu waxbaan isku darsannayee sii wada joogi mayno waa la xidhay markiiba jeelkaa lagu tuuray okay dadka halkanna markaa nagu soo gelaya ee doonaya inay ka doodaan annagu mar walba waxaan u hadlanaa horumarka gobolka awdal iyo maamul gaara inay samaystaan 30 sanno wixii la wadaynaa wax shaqaynaya maaha annagu dadka reer hargeysa bulshada reer hargeysa dhibaataysan ee halka dhakhtarka keliya ku yaalla uu siyaad baradhisay 30 sanno ka bacdi duulimaad kuma lihin burco oo sayladii burco ay xidhan tahay waqtigii siyaad barana shaqaynaysay duulimaad kuma lihin shacabka annagu waa sistamka faashiishka ee wakhtigiisii dhammaaday ayaa laga hadlaya doodaheenna mar walba la manjar habaabiyaa qabiilaa la necab yahay maxayba now dadku way is wada dhaleen dadku waa wada ehel cid nacabi ma jirto adeer doodda in la manjar habaabiyana maaha laakiin waaqaciyo dhibaatada jirta ninka qabaqaadkaa ee awdala ee halkaas soo gala ama twitter ka hadla boorama hadduu joogo iyo hadduu hargeysa joogana waa waxba iskuma jiraan magaalooyinka waa laga warhayaa runtii waxa soo bixi doona arrimo fara badan oo imika socdo onan doonaynin iminka halkan kaga hadlo maadaama miidiya aynu joogno marka intaasaan idigu soo koobaya waad mahadsantihiin nabiilow aad iyo aad baad mahadsantahay wax badan baad ka dhawaatisay commenti ka bixin karin waayo adhuwan ka bixin adeer axmed bay gacantu taagantahay adeer axmed kusoo dhawaa adeero mar kalena idin salaamayaa dee howlaha nabiil sheegayo horta waa wax aad looga xumaado dee waxaad ku arkay shiilac baad ku arkay waxaad ku arkay lowicaddo waxaad ku arkay meel kasta oo dhaqaale laga ururinayaad ku arkay caburistaas waa wax jira waxaad arkay qaashacadda oo mar labaad lagu cashuuro waxa ka yimaada jabuuti halka saylac lagu soo cashuuro haddana qaashacadda dib loogu cashuuro waxayoo dhan waa problemna haysta waana wax jira arrinkaa waa in laga hortago weeyaan oo ummaddu ka dhiidido oo dhaqdhaqaaq laga sameeyo innaguna waa inaan tala tacaala dee waxay nala jooga kolley oo hawahaa ku fiican nabiil iyo suxufi afroone dee waxaan jeclaan lahaa kolley sida ugu dhaqso badan in bal aan iskugu nimaadno aqoontiga caqligana xulno aynu tale ka gaadhno ummadeenna waa arrimahaas oo kale waxaa lagaga gaadhaa dee kacdoon shacab baa lagu gaari karaa xitaa dowladaha dee lacagta siiya waan u qori karnaa sida britishka oo dee halkaa aad joogtaanba European Unionka waxayoo dhan waa wax inoo bannaan aqoonteedii iyo kartideedii
iyo garashadeedii iyo diblomaasiyadeediina waan leenahay marka insha allahu tacaala howlaha hadda ha laga shaqeeyo wax loo dul qaadan kara ma aha intoo qof lasoo qafaasho in madax furasho laga qaadaay waa kind of slavery weya arrinkaas marka insha allahu tacaala adduunyadana waan u sheegaynaa bis idinka ilaah waan idin salaamaade هذا الوضع ما كنت تشوفه يخشعه faysalow soo dhawow faysalow ninkaa weliba cabdi ahibe sawirkiisi waa lai soo wadaa ka amiin laydhaaha sawirkiisa waa soo tuurisargareeyey waa nin weyn oo gaashaalaha dhexe oo taliyaha howlgelinta degmada boorama oo reer berberaa yarka kale cabdi haybe laydhaahana isagana sawirkiisa waa la soo wadaa marka كاسي نوصل تقرأي hay-adaha xuquuqul وصلتنا insaanka يوصل iyo cid walba waynu gaadhsiinanaa waa soo tuurisargareeya laygu maqan yahay aad baad u mahadsan tahay nabiilo waa la maqlayaa waan jeclahay si wanaagsan soo dhawow waa hagaag mar kalaan kusoo noqday aad iyo aad baad u mahadsan tihiin dhammaan waan idin wada salaamayaa waxaan baa igu soo celiyey laba qodob aan isleeyahay runtii aad bal yar ifisid arrinta inta badan nabiil baa inoo soo gunaanaday raggaasi sawiradoodana waan u baahannahay runtii habdhaqanka ama ficilada lagaga yani falcelinayana kule dee halkaa kama sheegayno laakiin waynu isku dayi doonaa bal in si guud aanu oga warramno markaynu helno sawiradaasi insha allah waxbaa laga qaban doonaa waxa igu soo celiyey inaan wax yar waxaa la yidhahdaa yar ifiyo safarkan dadkan lagu magacaabay erer Soomaale magaalada Hargeysa yimid ayaan rabaa wax yar asxaabay inaan idinla wadaago dabcan golaha waxaa ku jira dad badan oo Soomaaliyeed oo aad u sharaf badan oo deegaano kala duwan oo deegalka Soomaaliyeedna ka soo jeeda qof walbana ixtiraam baan u haynaa hadaynu raacodnahay waxa weeyaan horta nin baa hadda kahor waxaa laga hayaa caano jeclaa ayuu caanihi ka go'ay baa layidhi oo afka ka qabsaday markaasaa lagu yidhi waan hebelow adiga caanaha jeclaayay dee markaad aragto wadigii dhaleeli jiray waa sideeyo markaasuu yidhi caano markay naaso dameeraad galeen ayaan ka mashiiqsaday yidhi ama aanba ka masuugay ama aanba nacay safarka marka aad qiimayso ama aad kafad ama miisaanka saarto dadka labeenta u ah ama hormuudka u ah markaad aragto waxaad garan kartaa waxani in ay yihiin yani wax lasoo dhaafay oo huuhaa ah oo horay loo soo maray oo horey inta u shaqayn waayey weliba dacasay oo aan shaqaynin maanta erer marka la leeyahay erer waa reero Soomaaliyeed oo aan qadaran u hayno oo 9 ilmo Soomaali ah ka mid ah oo markay tagoog iyo dhiig noqoto laakiin waxa maanta socdo waa wax siyaasadaysan oo aad u kala afiiqan oo weliba urugo iyo murugo iyo xinjiro ay dhex yaalaan dadka hormuudka kaana waa dadka garanayna inkastoo bil Ramadaan ku jirno haddana yani xaqa inama diidayso inaan ifino Ramadaanta kelmadan erer iyo in la isku soo boodo oo dadkii ererka ahaa qaybna la eriyado qaybna la dhufaano qaybna sare loo soo qaado mar hore soo bilaabatay 60meeyadii ayay bilaabatay arrintan oo ay ka bilaabatay isku boodo ama isgaashan buuraysi ama isbahaysi la doonayay in qolo kale looga gol roonaado waayna shaqayn weyday horaantii 90meeyadii ba haddana dib loo bakhti afuufay haddana way shaqayn weyday sababtaynu u shaqaynayn waxa weeye dadka lagu majeeranayo ama la sheeganayo ama la doonayo in magacaasi la soo huwado waa dad ka aqli badan oo ka awood badan oo ka ballaaran dadka Muqdisho iyo Soomaaliya iyo meel walba degan ee ererka ee maanta la rabo in magacooga la adeegsado waa dad ka ilbaxsan oo ka weyn waxani maanta ay 4 qofood wadaan marka yani waxa noocan oo kala ah waxa adeegsado ama nidaamka noocan waxa dadka burcada ah ama gaangiska dadka qaabka gaangiska u abuuran ayaa adeegsada nidaamkii Hargeysa ka jiray markii uu wax walba waayay oo dhaqaale ahaan iyo ciidan ahaan iyo siyaasad ahaan gudaha iyo dibadba lagaga adkaaday ra'iisul ay kaga adkaadeen
oo caalamkiina ay indhaha ku soo eegeen oo soomaalina ay baratay huuhaadii iyo mala awaalkii dharyaha lagu karinayay 30 sano ayaa waxaa la doonayaa in maalinba meel laisku qaado marka dadkii shalay la caayayey ee la aflagaadeynayay Soomaaliyeed ee birmageedadeeda meel looga dhacayay ayaa haddana aan maanta u yeeranaynaa taasi waxay ku tusinaysaa dhalan habaabista meeshan ka jirtay taasi waxay ku tusinaysaa hargeysa in 30 sanaba waxa meesha yaalay ay ahayd yani gidaar cad oo gadaashiisana ay hilbay iyo dad lagu gowracay iyo dhiig iyo xinjiro daadsan yihiin marka horta yaan lagu kadsoomin qofka waxaan wada ama kooxda waxaan wada waa koox aanan cidna liqi karaynin qofka markuu qof mustawa martabad sharaf qiimo leeyahay ayaad codkiisa iyo muuqaalkiisa liqdaa laakiin qof aad liqi karinba oo aadan arkayso qofku yahay waxba yaan lagu kadsoomin hargeysa markay tagaana wax ay ku soo siyaadinayaan jirta awdal iyo deegaanadaas annaga ka soo jeednana marka horeba waxa ruwaydan aan shaqo ku lahayn soo dhawaanaya qodobka dambe oo ugu dambeeya ee ah sidee waxaan looga badbaadi karaa halgan kasta oo bilaawmaya waxa uu ka bilowdaa fahan in qofku uu fahansan yahay inay wax ka maqan yihiin halka ay ku maqan yihiin iyo sidee waxaas loo soo ridan karaa ayaa horta uu ka bilowdaa dadku haddayna wacyigooga uusan soo jeedin dadku haddaanan la tusin dhibaatooyinka meesha ka jira halganka ma soo geli karaan sababtoo ah 30 sano wiil la lahaa Somalilander baa tahay calan baad haysataa adaa calanka sameeyey adaa meesha hooye ka ah adaa aabba ka ah wiil la lahaa yani in la yiraahdo soo gal halganka waxaa ka horeyso bal in la tuso 30 sano waxa yani lagu sameeyay maskaxdiisa in lagu ciyaarayay tamartiisa in si qaldan loo adeegsanayay aqoontiisa inay cidla ama daleed tahalay waa in horta la tuso marka halganku wuxuu ugu muhiimsan waa fahamka iyo halka laga tisqaadayo dhalinyarteena maanta waxaan aad ugu faraxsanahay in badan oo kamid ah way baraarugeen way arkeen wixii loo sheegayay inay wax jira ahayn laakiin wali waxay u baahan yihiin in si dhab ah oo la taaban karo ay u arkaan waxa meesha ka jira waayo aniga marka maanta gabadh walaashay ah ama in adeertay ah inta habeen madow aarayu u soo dhacdo ay guriga kala baxdo iyadoo qaawan dhiga dheere ama gaari lagu rido anna markaas aan magaalada inta imaada aan maqaaxyadaha shaaha ka cabayo oo sheekeynayo kaftamayo qofkeen ahay marka waa inaan isdareemo qofka aan ahay damiirku marka marna isaga kula faqa marna damiirka adaar raadsada damiirka goortu kula faqayo waa goorad yani xeerii fandhaal kala dhaceen laakiin marka aad damiirka raadsanayso waxa weeye inaadan ba iskuul aadi karin oo jaamacad tagi karin oodan kaftami karin walaashaayo dhiga dheere lagu qaatay dhalinyaradeenna marka waxaan leeyahay inta halkan iga maqlaysa in badan horena waan loo hadalnay in ay u midoobaan waxa ugu horeeya ay u midoobayaan waxa weeye raggan uu maanta inoo sheegayo nabiil walaalkeen inoo sheegayo waa shakhsiyaad magaalada Boorama 400 oo kun oo gaashaanqaadaha ku nool 400 oo kun qof haddii maanta la helo oo xabsi walba ama saldhig walba hor joogsata oo buugaagtooda iyo buugtooda iyo qalimaantooda soo qaato hor fariiso tiraado yeelmayno dadka halka ku jira soo bixiyaan u baahannahay hal habeenno kuma sii nagaanayaan magaaladan cidna ma joogayso nin walba dhulkiisa isaga leh laakiin markii dhalinyarada ay wili jirto yani waxa loo yaqaano in uu isagina wax doonayo walaalkiina uu si kala wax u arko in adeerkiina uu iyagi dhabarka ka sii taabanayo wali waxay u baahan yihiin in timahooga ay dhan u wada xidhmaan waxay u baahan yihiin in dadaal badan iyo baraarujin badan iyo wacyigelin badan in dhalinyarada la siiyo iyaga in lagu soo casuumo golahan oo kale dhalinyarada Boorama joogta ama gobolladeena kale yani deegaanadeena Luqaye iyo Looyacade iyo Saylac iyo Qolujeed iyo Boon iyo Baki iyo Galbadada iyo Xariirad iyo Gabile iyo Wajaale iyo Dila iyo meel walba jooga halkan in lagu soo casuumo oo dareenkooga in la wadaagaan oo waxa aan aaminsanahay aanu tusno oo waxaan inta propaganda jirta propaganda inuu yani waxaan waxba ahayn ku shaqeeyo
shaqadiisaas yarna la yidhaahdo ninkaasi soo qayliyaya sida odayga hadda maanta hadlaya lahaa dadka ka yoyootama qurba joogta yacni waxaa looga dhaadhicinaya qurba joogtu inay ka daadinayaan sareeradan ama mirahan quruxda badan ay haystaan waa in markaa aynu dareenkeennu uu isku xidhmo waxa la laba kala bariday kala walla dareenka qofka gudaha jooga iyo qofka qurba joogga ah waa inuu isku xidhmo waa inuu dhiiggeennu isu furan yahay waa inuu isu halboola furanahay waa in aan kala heli karno ugu yaraan dhacdooyinka joogtada ah ee asagana haysta anigana haysta si markaa aynu u noqono dad meel u wada socdo marka baraarujintu iyo wacyigelinta waa waxyaabaha ugu muhiimsan oo maanta aynu u baahanay in dhallinyarteena la wadaagno waxa aynu badbaadinayno waa dhasheenna waa dhallinyaradeenna waxa aynu badbaadinayna maskaxdooda aayatiinkooga himilada iyo hiradka ay hiigsanayaan waxa aan badbaadinayno waa dhallinyaradooda odayaashan waaweyn runtii iyagoo qabi iyo qurux wixii lahaayeen way soo qaateen laakiin maanta dadka loo baahan yahay oo xoogga ah oo gaashaanqaadka ah oo darirta geli kara oo yacni qadi kara waa dhallinyarta weeyaan iyaga markii in aanu xoogga saarno oo aynu soo dhaweysano ayay ahaanaysaa insha allah kulle waan joogaa qodobo kalena way ii laaban yihiin oo kusoo